Milatariga Israa'iil ayaa la dhawrayaa nooca jawaab ay ka bixi doonto weerarkii dhowaan dhinaca cirka Iiraan ku qaaday deegaanada maamulkaasi. Israa'iil ayaa iska diiday baaqiyo caalami ah oo lagaga codsanayo inaanay jawaab ka bixin ama aanay arrintaasi ka jawaab celin. Wasiirada dagaalka maamulka Israa'iil ayaana go'aamiyay inay jawaab cad ka bixiyaan weerarkii Iiraan ku soo qaaday, waxaana weli la ogeyn nooca ay jawaabtaasi milatariga Israa'iil ka bixin doonto weerarkaasi. Milatariga Israa'iil ayaa feejignaan xooggan ugu jira weerar kasta oo jawaab celin uga yimaada Israa'iil inay Iiraan adkeysay amniga goobo badan oo dalkaasi muhiim ah, iyadoo sidoo kale la diyaariyay gantaalada difaaca hawada. Madaxa sare ee dowladda Iiraan qaarkood iyo taliyayaasha ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ayaa weli ku jira xaalad feejignaaneed tan iyo Sabtidii markii Iiraan weerar aan hore loo arag ku qaaday Israa'iil. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda Iiraan iyo taliyayaasha sare qaarkood ay ku jiraan guryo ammaan ah iyo goobo kale oo ku yaala dhulka hoostiisa si ay uga badbaadaan weerar kasta oo Israa'iil uga yimaada. Yaxya Muuse Ibraahim, Nairobi, HTV.